qof salaad tukanayo salaadiisa leh marka 9 meelood loo qaybiyo meel ahaan 8 meelood loo qaybiyo meel ahaan ilaa uu soo gaarsiiyay nus 2 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan oo waa maxay salaada intaad soo jeedabad ajirkeeda leedahay inta qalbigaagu xaadirkayay ee ilaahay aad dhab ula hadlayso ee soo jeedabad ajirkeeda leedahay idan salaado dhan miyaynu soo wada jeednaa waa maya inta badan salaadaha markaynu gallo waad mashquushaa meel kale caqligu baxaa waxbaad xisaabisaa wax kale ku mashquultay intaad xaadirka ahayd baad ajarka leedahay marka waxa suurtagal dadku inuu safka salaada ku wada jiro hal salaadna wada tukanayo isku ajarna aanu ahayn qofba uu in helay mid baa salaada ku jiro Allahu akbar ay ugu wardambeysay markii uu yiri wuxuu miiraabay assalaamu alaykum markii la yiri ilaahayna quraanka wuxuu ina leeyahay khamriga kuwa caba khamriga ha tukina hatta ta'lamu ma taqulun illa agaranaysa waxa ku hadlaysa ay culimadu yiraahdaan dadka badba adduunyadu sakhraamisay oo aan garanaynin wuxuu ku hadlayo khamrina ma cabin mana joogo asalku waxa weeyaan markaa salaada waxaad leedahay ajarkeedii salaadu ma ka gudantay aakhira ma tukanin lagu oran maayo oo mar haddii aad la timi shuruudeedii arkaanteedii waxeedii culimadu waxay leeyeen qofka la oran maayo salaadii waa lagu leeyahay ama salaada soo celi laguma laha idan salaadaadu waa saxiix laakiin intaad ajarka helaysaa intay ilaahay ku dhaweynaysaa intaad thawaab helaysaa aakhiro intaad ku biiraysaa kuwa ilaahay quraanka ku tilmaamaya inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar intaad ku biiraysaa intaad noqon kartaa salaadu kuwa ay ka celiso fuxshiga iyo munkarka wa salaada 'inda Allahi maqbuulka wa salaadu nabiga alayhi salatu wasalaam mesela midwa la yiri habeenkiina uu tukadaa maalintiina waxbuu yara xadxadaa nabigu wuxuu ku yiri ma tukadaa haaba yiraahdaa nabigu waa in tukada idan salaatuhu satanha bu nabigu yiri salaadiisa ka reebi doonta salaadiisa haday tii fiicnay tahay iyada ka reebaysa idan sixada inuu shaygu asaxay iyo in rabbi aqbalay oo thawaabatay shay waa kala laba saxiixnimadu waxay ku xidhan tahay acmaasha daahirkeedii inuu sharciga waafaqsan yahay ilaahayna in loola jeedaan cid kale loola jeedin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ahsanu amalku wa kana culimadu yiraahdaan waa inuu sharcigana waafaqsan yahay isla markaana waxaan leenahay calaama fi alqulub wa marka koowaad qalbiga waxa ku jira bay ku xidhantay salaada ومثلا آخره نبي عليه الصلاة والسلام وحشيغي نبا إيمانيا دبتنا سجلات من الذنوب فايلال دان ودنبيا لكينيا كان ما سميس وحول بو قرانيا هذو لي وحملوا مكادل من نميات قراني سامي وحسنا ملاذي وحبو قرن وايا وحال لي حسنا في عمان كوهينا سجل بالكينيا هل فايل قرا لكينيا بطاقه اي نبي كنت المام كارد بالكينيا كارد كا waxa ugu qoran tawxiidkiisi kalimatu tawxiidkiisi baa ugu yaala nabigu wuxuu alayhi salatu wasalaam card kana meel baa lagu miisaamaya sijilki kale faylashi kale meel baa la saaraya waxa la yiri card ka xoog badanaya dabeetana jannadu galaya okay wanin tawxiidkiisa ka xoog batay dambigiisi لكن الحديث كلا واحد تلماميسا قار أهل التوحيد والنار تقليا جرينا حديث الجهنميين تيكا ورميسا وحال عليه وحي قلبي سيمنون كتيرا كل إن لصو صاري دونه ومركا وقدم يسا حديث النبي تلماميو جهنم ميلا عدد كاسي قلينا وكلا جير كوحال إلى ذاك بحي دونا وقتي جهنمي قالي دون تابو النبي عليه الصلاة والسلام دوري أي كبحضه وحي علماء دو إلى طبقات المؤمنين تكتيرتا طبقات كافرين تمام طبقات كافرين تسيدي بين نار وحاني صحيح طبقات يا ما ماشي كذا جيرين دكي موحدين تهاي ذنوب تسمي زنا كل داعي خمر كل داعي بوف كل داعي دل سمي وحس دكي اعماش ذنوب تواوين سمي يلا عقابي markii dambe laga soo saaray waa meesha ku jireen oo iyagoo miyaanay shahaadana waa shahaadanay laakiin waxa leenahay sida salaadeen uu kala xoog badantay ay hatta kalimatu tawxiidkeenu uu kala xoog badan qulubta waxa ku jira iyo qofku ilaahay sidoo taacad ugu yahay iyo rabbigi sidoo u arkayo iyo macbuudkiisa sidoo u weyneynayo waa ku kala gadisanay basharku waa kala gadisay
walidaalika uu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa meel soo maray markaasuu yidhi kaasi siduu idinla yaagtiina nimankii la fadhiya saxaabadii waxay ku yidhaahdeen ilaahi rasuulkiiyo kaasi waa rajulun xariyun waa nin mudan bay yidhaahdeen hadduu gabadh ku weydiisto waa nin la siiyo oo hadduu hadlo waa nin la dhegaysto oo hadduu erge kuugu yimaado waa in ergadiisa nin la aqbalo yacni bulshada dhexdeeda waa nin magac ku leh oo wixii uu la yimaado laga aqbalayo nebigu iska aamusay mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaana ka warrama waxay dhaheen kaasi hadduu erge kuugu yimaado shafaacadiisana mid la aqbalayo ma aha warkiisana hadduu hadlayo mid la dhegaysto ma aha gabadh hadduu ku weydiistana mid la siiyo maaha bay dhahay yacni wixii dadku isku qadarin jireen buurna ma wato nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa aa sheegaysaanoo hore dhulka muggiyo kaasaa ka khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhulka muggiyo ninkan idinka idinla ammaanana waxaa ka khayr badan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kaa